waxaan rabnaa in qaraarkii aan saxiixay anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda labadiina aan saxiixeen in dib loo eegaan rabaa oo yiraahdo xataa dawladii dhexaadinaysa oo dhaho baarlamaankeeya la soo tashanaa ku noqonaya fiiri dawladaha waxay leeyahay yihiin waxay ogaayeen qaraar baarlamaan Soomaaliya soo saaro madaxweynaha saxiixay hadda waxay arkayaan madaxweynuhu diyaarad iska wato iska saxiixay wuxuu rabo moon inaan la ixtiraamaynin oo wax qadarin naloo haynin way muuqataa Soomaaliya way tiraahdaa ri walba lax walba shilinka digtaan u gooraaca meesha waxaana dhigay anaga waa gudoonka hadduu gudoonka yahay mid xisaabtamaya saasna loo macaamilo waa gartay way Cabdiraxmaan way Cabdiraxmaan intaan ogahay siyaasi aad u qadariya arrimaha dimuqraadiyadana kuna dooda ayaa tahay haddii baarlamaanka suurtagal ay tahay ama hadalka loo dhigo in la kaga cod badan yahay intiina mucaaradka oo xukuumadii iyo in badan oo baarlamaanka kamid ah isku aragti ay noqdeen Soomaha inaad ku gowracantaan arrinkaasi oo aad aqbashaan sida wax u socdaan walaalo baarlamaanku waa isku raacan ku arrintan Mawlid labadiisa aqal qof diiday ma jirin ba intana loo soo noqday nalama dhihin arrintii in laga noqdaan rabnaa oo shardigii in laga baxo maxaa lagu gaaraa Mawlid laga batay laga yaraado in loo soo noqoto ma jirtay waa garta soo xaq ugu ma lahayn in loo soo noqdo la yiraahdo madaxweynaha uu yiraahdo baarlamaankayga watash u noqona takale madaxweynaha yaa siyaasi awoodda heshiis ku saxiixo xukuumadda iskale laanta fulinta xukuumadda iskale heshiisida la galay madaxweynaha waa cidii marjic noqon lahayd oo loo soo celin lahaa wixii heshiis la soo gaaro wuxuu qabanaya ra'iisul wasaaraha la ankara inuu wax saxiixo cidii la rabay inay tagto ahayd waa ra'iisul wasaaraha laakiin Cabdiraxmaan anagu baan arkay madaxweynaha heshiis u saxiixay waxaan aragnay bayaan la soo wada saaray heshiis miyaan aragnay oo Xasan Sheekh Maxamuud ku saxiixan yahay iyo Abiy Ahmed ku saxiixan yahay waxaan ka ahayn waa warmartiyad communiquega yaa soo hadda ki communiquegi ankara iyo communiquegi Addis Ababa cidda la saxiixanaysay oo la galeysay ahayd waa laga yaabaa in adigu si kale u fahamsateen kan saxaafad ahaan anagu ma aanan arkin magacayo meel ku qoran marka ma heshiisyo hoose jira oo qoran oo anagu aan ogeyn war communiquegi heshiisyadu kamid yahay mucaadadka dawliga communiquegi heshiisyadu kamid yahay Mawlid aan ku saxo madaxweynaha asaas soo saxiixay communiquegi waa warsimuteedka soo baxa laakiin waxa la isku raacay labada dhinac isku raaceen oo Erdogan dhex fadhiyay labada dhinac isku raaceen maxay ahaayeen oo la iskala wareegsanayo warbartiyad saad u leedahay adiga ma dhicin maxaa la kala saxiixanay su'aalan ku weydiiyay su'aasha ina su'aal ku weydiiyay Cabdiraxmaan meesha ada igu martiya laakiin heshiis iyo warmartiyad laba kala yihiin warmartiyad waa wax ka soo baxay shir la yeeshay heshiisna waa heshiis Soomaha qaaruunka Cabdiraxmaan liban ninka leeyahay Mawlid waxa la gaaray wala waa safgarad ina waqti ku luminana maaha oo dadka ku sugayo ina waqti ugu lumisa maaha safgarada Ethiopia Soomaaliya ku gaareen Ankara haddana waxay ku gaareen Addis Ababa hadda rabtana waxa soo moogaa sameysay soo bar safgarada la gaaray safgaradka la gaaray in gudiyo la dhiso waa ka xumaa inaan waqtiga aan igu yahay laakiin waxa raba inaan arinta cadeeyo hadii aad haysid wax xog dadka ka qarsoona banaanka soo dhigtid waxa la yiri gudiyo farsamo la sameeynaya bisha February waa arinta la bilaabaya bilaa lagu soo dhameynaya ma waxa jira heshiis madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay galeen oo aan ka ahayn burburtiyeedkaas Mawlid waxaan ku weydiiyay in gudiyo la dhisa maxay tahay waa safgarad أنا مركز أسكن ما نود عنه أرنتي نتحت أنا وكهشيني وحنا ساريننا جوديو محل يرادا بل إيش هذه اللغة ده أتقان محل يرادا ما بنقول العيار ما أدوق يفسر حتى هو بكون شاهد وصف جردا مكويري هنا وقت إنه أقول له مثلا ديدنا هدي فقالي كلا أنكره وحلوسه شيء إلا لسه جوديو وحي هورا لقى قضبة كسب ماشي قضبة محيين أما أنا دارته إذا عدا كشغي سامله ورية كوميونيكي كم مجعوها ما كم مجعابين ماشي قضبة كسب بحال اسكو راعي وأفجرت كوميونيكي وقيب كيا شيء وقيب كيا استياذ إنا فهمتوها إنا وقت نقوله مسنا معها وعلى اسكو راعي جوديلا ديسو أيضا اللي جارين حلقي فبرورية اللي قبل لما
ankara in loo noqdo guddiyo la dhiso yaa dowladdeena inta xukuumaddeena laanta fulinta inta carartay aad soo tagtay soo ma ahayn in guddiyadii la dhisay laga warsugo oo ankara lagu noqdo oo February guddiyadii ay wada hadlaan soo ma ahayn maxaan ka doonaa Addis bal adiga weydii markaa aragto kuleet adigu kuma weydii kare maxaan u carno Addis aad ma sugno guddiyadii wixii ka soo baxa ha wada hadlaan wala meesha wax kasta lagu ciyaaray hore uga socon hadaa su'aalo kala qabto arintaas waan weydiinay madaxdii halkaan aan ku marti qaadnay waxay noo sheegeen qorshaha inay kamid ahayd guddiyada la sameeyay hawsha hore u soconaysa way qodobka saxan kaga gudbayaan waxaan san lahaa Cabdiraxmaan markaan hadlaayo hadii aad iska saari kartid mud iska saar codkayga laba jeer soo laabanaya dhageystayaasha waxa laga yaabaa comfortable ku ahayn waa mahadsan tahay waa hagaag waxaan rabaa markaa inaan u gudbo arrinka doorashada siyaasiyiin adigu aad kamid tahay iyo xildhibaano baarlamaanka ku jira iyo mas'uuliyiin xilal soo qabtay waad ka soo horjeedaan sida dawladdu hadda ay u sheegtay in doorashada loo qabanayo maxay ku salaysan tahay diidmadiina oo aan ka ahayn looma dhama diidmadeena waxay ku salaysan tahay waa very simple ma dhibadna muranka kuma jiro dastuurka la bedelaan diidana waa inaan fahanaa dastuurka asala sharciyadu waa farac annaga waxaan diidanahay waxa waaye dastuurkii la soo bedelay oo si unilateral lagu bedelay Soomaalina waxay dhahdaa hal booliye niri halaal ma dhasho sharciyada marka meesha dhisan oo dhan ama sharciga xisbiga ama sharciga doorashada ama sharciga lagu dhisay guddiga doorashada ama guddiga doorashada si loo magacaabo dhan waxa ka horeeya dastuurka la soo bedelay dastuurkaas la soo bedelay aan diidanahay annaga waxa la halay wixii dastuurkii la bedelay ku hoos jirane ama doorasho ahaato ama ha ahaato sharciyo xisbiyo ama wixii roon ahaadani waa diidanahay marka waa in la fahmaa doodu waa dastuurka la bedelay dood doorasho ma tahay waa garta arinta dastuurka marka aan dib ugu laabto sanadkii hore xilligan oo kale dood baa socotay adiga Cabdiraxmaan Cashkuur iyo rag badan oo baarlamaanka ku jiro hadda arrimaha ka soo horjeeda waa ka doodayseen waxa la haydan qodobkan sidaas hal yeelo sidaas hal yeelo sidaas hal yeelo maxaa hadda dib u celinaya dastuurkiiba wax laga bedelay ilaa xilligaas baarlamaanka waa joogteen arrintii waxay ku soo ururaysaa wariba aqlabiyada waa loo codeeyay sidaas ayuu ku maray intii cutubay wax laga bedelay marka ma la oran karaa inaad sida yaani diidmadaada ku salaysan tahay inaad u arkaysaan arrintan inaysan u socon sida adinka aad u rabteen laakiin doodan ay soo socotay sanadkii hore xilligan oo kale oo baarlamaanka xitaa adigu ka dhaxlaysa Cabdiraxmaan وما سنت مولد سؤال في عن وحنا ضدك الصوماليين كل دقيقة سنة إن عن وقت هذا شيء سو فهم سيو أما أسلفها إنه صوماليا دولة النمذج هذا وحي كل سنة وحلي هذا negative check and balance معني إسدالتير تبان كل سنة محن كودنا إسدالتير تبان وأفر دبي عشان إن أود سياسة لجو قيبيو بعلهنا إحلاك الدولة كلا قاتان أساسا لو سمي رئيس الوزراء يمدحوينه كلا بيل ودوين برلمان أنكو بيلهين بيلهاس أيها وحي كل سنايين وحلي يرادو أول قيبسي كساليسن إسدالتير طبعا محلولي هاي وبريمتيف وحفي عن ما هو بيل وحارمنا إنا أقدمنو check and balance أو positive أما إسدالتير توغن إنا أقدمنا ربنا محاواي إسدالتير توغن محاواي هي هذه لا دسي برلمانكي iyo garsoorkii iyo fulintii iyo qawaaniintii dalka inay shaqeeysaa la rabaa oo u shaqeyso si madax banaan oo mid kale ka madax banaan yahay marka ama dastuurka la dhigtay ama doorashada la aadayo ama waxa soo dhan waxa waa inay u khidmeeyaan inaan u socono towards ama xagga isdheelitirkii tognaa inaan u soconaa la rabaa laakiin haddii laanta fulinta ama madaxweynaha oo jaabka ku rito baarlamaanka ama garsoorkiiba oo madax banaaneen oo dhihi karo ninkii asaga isku dhacaan warqad warranty soo saar iso dalab inaan soo qabsado adeero waxaan joogaynaa marka check and balance-gii ama isdheelitirkii tabnaayaan joogaynaa halkaas istaagaynaa because kaas wuxuu keenayaa dalka inaan la isku dilin oo colaad ka dhicin
oo aana gacanta la iskula tegin ninkii Puntland joogana Puntland soo joogaya kii Jubbaland soo joogaya